oohinta caruurta ka soo yeedhaysa waxa ay astaan u tahay inta ay leeg tahay abaarta muddada dheer qaadatay ee taabatay dadka guud ahaan ku dhaqan meelo tiro badan oo gobollada Awdal iyo Salala. abaarta jirtay waxa ay noqotay mid ku astaysan roob la'aan biyo yaraan deegaankii oo si xaalufaya barakac gaajo gurmad la'aan nafaqa darro yar iyo weynba taabatay iyo weliba meelaha qaar oo ay ka dilaaceen cudurro ay ka mid yihiin shuban iyo jadeeco taabatay caruur tiro badan. dadka ku dhaqan deegaamadan gobolada Awdal iyo Salal oo markoodii hore ahaa kuwa xoolo dhaqato ah ayaa xoolihii ay abaartu ka sahayatay ayaa waxa ka dhashay barakac xoogan oo dad aad u tiro badan dibadda u soo saaray balse dadka soo barakacay iyo kuwa loo soo barakacay isma dhaamaan. diifta ka dhalatay abaarta dareenka gaajadu wato iyo wax walba oo ka guuxaya maanka dadka soo barakacay waxa kaliya oo adagaan kartaa marka ay dhagahaagu maqlaan hadallada afkooda ka soo baxaya. horali habeen aakhira la taagan yahay walaalay bacadkaana waa lagu soo dhacay dadkuna qarfu dadkuna u badan yahay tii jilicsanayd ma iman tii bugtay ma iman kii qawacaha ma iman halka dara loo baxo gacmahan ku sidanay waxa أول ما صورن وحلا وحجلسن ما هنا وحسر جوابه أدونا نكمة إيمان. أبار بارنا كانت وأبار تاجوي وأبار سدح جرة وأبار نروح رأكتي سرم بيوت يا سرم باد أنت بوان بقى. وصوب بركاني يا خلينا ما وضو وصدق خلاص كذا بركة سنة لكن بايهم قولي يطوق جب طير كي كانوا نقدر ماضي. taantu gaajada un bay ka kacday geeliyaariba dadka xuluub sida uga madheen baana kama kaleeni dawaanaga cadaanka aan biyo ku soo qaadanay waan weynay dameerna Allah ka yeelay bacbacda baan dhabarka ku soo qaadanay biyaasaan ku soo urursanoon ubadka kula soo tuudanay geel ma ari male dadkayadii ugu kala wiilada waxana waa kuwa kor waxa noo dhisay waa baco tuurta la noogu soo qaado awr waan weyn oo dameer waan weyn waan ma Allah waxaan mudana midna mala raqdiisi waa ka la tusay darkiisi bakay ayr baana keentay caruurta goor cadays ugu dambeysay laba garto ya waxa keenay jaa walba ma iimanin ayr baana keentay ayr yaana keentay dhaqatada haabanahay dunyadii aan wadanayna way dhamaatay deed ma aragtay wadadani si alliya amarkii uman halkan ku iman kolka hadaba abaar baana keentay halkan dunya wixii aan lahayn hore u socotay waxa ku biiray hadii la yiraahdo xagaa kulul iyo wixii maanta ay qoodinayeen oo dib uga dhacay dadkani uma baahna maanta waraysi waxa kaliya u baahan yihiin arag iyo waxtar biyaha macaan ee helayaan dadkaasi barakacayaasha ahi waqti maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay sii noqonayaan gabaabsi waxaana daadsan deegaanka ku hareeraysan gargaar oo dhan raqda ka hadhay xoolihii ay dhaqan jireen waxa loogu daran horta
dhulkii cirka wada arkaysiine abaartu way nagu da'weyntaa dadna way noogu da'weyntaa dunyana way noogu da'weyntaa waxa weeyahoodu biyuhu kuwa adarka seen dhoobana ma yihiin ma lagu sheegi karaa ta kale abaareed waxaan ku yidhi taalkan leenay soo maarkaysa abaar iyo waxaan ku yidhi waxa yagii nagabay oo waxaan ku yidhi waxaan ka iibsanaan weynay oo qawtar daruuri loo gabay oo waxaan ku yidhi abaar loo gabay yaa oo biyo la'aan u baqtinay ayaanu joognaa dadkani ma haystaan wax huya waxaana ay ku nool yihiin guryo cooshada ah oo ay ka samaysteen geedaha hoostooda cadceedda iyo minaca kulul ee ka dhacaya waqti xaadirkan xeebaha goboladan awdal iyo salal ayaa waxa ay tahay mid aad u kulul taasina ay ka dhigtay arrinta mid kasii daraysa dadkii reer baadiyana qul uu maanta ku nool yahay ma jirto kol hadday xoolihiisiiba dhimanayaan dadkuna dee waxba kuma noolo la ogyahay day waxaan haysanaa ma annaa jirto annaga de xoogan cilla naalo oo dunya uma naalo oo maaragtay diilna way dhamaadeen waa tahay way dhamaadeen xoolo waa naabaan xaaladdu way kasii daraysaa deegaankana waxaa ka muuqata inay ka jirto masiibo aadanimo oo u baahan in gurmad degdeg ah lala soo gaadho waa kaasi hala nala soo gaadho annaga oo dawladda Soomaaliya hana soo gaadho hana caawiso bitaalka yagana wayniga arkayo maxaabad naga weydiinaysa dee wax degdega walaalaha nala soo gaadho ay Soomaaliya wax degdega nala soo gaadho waan dhimanaynaa oo carruurtii way dhimanaysaa qaaq baa ka dhamaan yaa dee wax degdega walaalaha nala soo gaadho waxaan leeyahay waxa ninkani u soo sido waxay ku sugaan haddaad wax kala weydiin sida ugu dhaqsa badan aan loola soo gaadho waxaan doonaynaa inaad amba warwariye lahaw balan waxsiin lahaw inaad noo yaa tii bil aadam intuu wuxuu qaban karay hadday hadal tahay hadday hanti tahay inaad noo gurmataan wallahi waa magac ilaahay geerkay saaranta ninka wixiisii awrtii kale hore lagu horeeyay arigiina daba maray muxuu ku noolaandee Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ninku arkaya loo masrajiyo waan arkaysi inay muuqato